Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba saaxiibayaal meel waliba aad dunida ka joogtaan iyo si waliba maqalkayaga idiin soo gaarayo. Halkani waa barta YouTube-ka aynu ku leenahay ee warbaahinta maanta. Maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadan doonaa fanaanada caanka ah ee Nadira Nairus. Balse daawade intaynan u guda galin muuqaalka oo dhammaystiran, haddii aad channelka ku cusub tahay, please subscribe saaro, gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar waliba la socda muuqaalada xiisaha leh aynu halkan idinkugu soo gudbino. Balse aanu u guda galno muuqaalka oo dhammaystiran, fanaanada oo soo wajahday arrin aysan filaneyn. Balse daawade fanaanada Nadira Nairus oo si sahlan uga dalbatay furiinkeedii ayay arrinkaasi si fanaanada haatan dib uga shalaysay, waayo sabab aanan sidaas u weyneyn daraadeed. Balse ninka qaba fanaanada Nadira Nairus ayaa waxa uu ku dhaqaaqay arrin aynan marnaba ka filaneyn in uu si sahlan ninkeeda ku samayn karo. Balse marka hore ayada ayaa dalbatay, balse ma aysan lahayn waa uu kaaga dhamayn doonaa arrinkani. Waxaa la yaab iyo ama kaa ku noqotay fanaanada Nadira Nairus furiinka ninkeedii furay. Balse fanaanada oo arrinkani ka xun ayaa waxa ay barteeda Instagram-ka soo gelisay ayada oo muujinaysa in ay cara ka muuqato iyo ciil. Balse arrintani daraadeed ayay la ilmeysay fanaanada. Balse markoodii hore ayaa ballanka waxa uu ahaa inta uusan dhicin arooskooda ka hor, marka uu dhaco arooska, in uu siin doono fanaanada lacag gaaraysa ilaa iyo $15,000. Balse ninka qaba Nadira Nairus ayaa haatan waxa uu sheegay in uusan haysan lacagta, balse uu sii doono mar uun. Balse fanaanada ayaa waxa ay tiri, anigu kuma qanacsani hadalka, kaliya waxa aan ballan ku wada galnay aanu isku oofino. Waxaadna ii sheegtay inaad isii doonto lacagta gaaraysa ilaa iyo $15,000 markii uu dhaco guurkeena. Balse arrintii way isbedeshay oo waad iga baxday, sidaa daraadeed ayaan kaaga codsaday furiin. Balse ma ahayn furiinka aan kaa codsaday mid sii jiri doono, kaliya waxa uun kaaga codsanay inaad isiiso lacagta. Adiguna ma aadan samayn, waad ku degdegtay furiinka. Kaliya waxa maanta cayb iyo xumaan ii ah, aniga oo ah fanaanad aad magac uga leh baraha bulshada iyo shacbiyadda Soomaaliyeed, in aad iga dhigtay qof aanan qiimo kula lahayn oo halkaasi aad igu layacday. Hadaladii Nadira Nairus ay barteeda Instagram ku soo qortay ayuu ka mid ahay hadallada. Balse haatan daawadayaal, wararka kale ee qarsoodida ayaa haatan waxa ay nagu soo gaarayaan in fanaanada Nadira Nairus ay xiriir la sameysay ama ay la sameynayso fanaanka Qamar Suugaani. Balse arrintani ayaa haatan dib u soo korortay markii la furay fanaanada ay kala tageen xaajigeeda ay sida sahlan ku weyday. Balse fanaanka kale oo haatan dhow aroosay xaas kale ayay haatan waxa ay la sameynaysaa ayaa la leeyahay jacayl cusub. Balse arrintani ma noqon doontaa mid sii socon doonta ama mid sii jiri doonta? Wararka xiga ayaanu ku eegi doonaa hadduu ay ka raali noqdo. Daawade, haddii aad tahay mid ku cusub channelka, mar labaad waxaynu ku leenahay channelka subscribe dhaho si aad mar waliba ula socoto muuqaalada xiisaha leh iyo warbixinada aan halkan idinkugu soo gudbino.